kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga cadaaladda daryeelka ee cudaya saaka iskugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee degmada Garadag iyagoo socodlo oo ku soo maray wadada halbowlaha oo degmada Garadag isla markaana ruuxay caalanka astaanta oo xisbiga cudud isla markaana ku dhawaaqayay kuliyada ku soo dhawaan iyagoo sitay boordo waaweyn ay ku sharaxayeen musharaxa madaxweyne xisbigaas iyagoo taageerayaashan ka tirsan xisbiga cudaya si weyn uga dhex muuqanayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay ururada haweenka dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka isboortiga guntiga gabagabadina uu xafiiska ku leeyahay degmada Garadag qodobada kuwa la ugu soo jeedin gudoomiyaha xisbiga ucid degmada Garadag Cabdi Caawad Barre iyo mas'uuliyiin kale oo dhamaantood ku nuucnuucsaday ahamiyadda ay taageerayaashan u leeyihiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid waxayna dhahay sida tan ilaahay mahadii nabadgeliyo caamo buuxda ayaynu haysanaa degmadeena taana waa waxa kaliya nabadgelyada lagu seexdo ee lagu soo tooso ee lagu caanamaalo jiritaanka caamka ah ee dunida lagu leeyahay bay ka mid tahay waxaynu ku talagelinaa ilaahayna la kaashanaynaa inuu ilaahay inoo sii adkeeyo oo ina ka aqbalo baryadeena markii aan ka gudbo waayaal desfari mayno saddex isqaran ayaa tartamaya xisbiga kale oo iska keenyar gudbadaya waxaa intaas inagu maqalkeena iyo doorashadeena oo aynu inagu ku nahay ku deganahay nabadgelyo caama ku bixinayno idaabta ku ilaalinayno asluubta ku ilaalinayno nabadgelyada ku ilaalinayno ixtiraamka ku ilaalinayno ayaynu inagu weligeena doorashadeena aynu ku tahay nabadgelyada waxay u tahay qof kastaba oo inaga mid ah rag iyo dumar waxa lagu nagaado ama lagu gadaa waa nabadgelyada xishoodka sharafta islaamka sidaa daraadeed سامين ليس على ولا بسور وقول لي ما ينو صلوا بسرنايو صلوا بسرنايو الله سودي يا كرام ومدرسة قربان دغرة جمهورية الصومال Garadag